أري عرر كدنبه عرعرت هوري اسمه قلاني كلا ده يا عرر كهوري عرعرت الدنبه اسمه قادته أنيقو أوج waxaa dhacaya inay xabad tahay anigoo og in hadii ay kugu dhacdo ay xanuun badan tahay anigoo og in dunida sida uga tagta haday ku dhacdo ay fududahay anigoo og ma garanayo wax diidaya inaan islaamaha dabadooda ku gabado 8 Febraayo hal la gaaro waa la gaaray 19 Febraayo hal la gaaro ayna gaarnay ha dhacay kusoo dhaw qubanaheeni sida wada ogtihiinba ayadoo banaanbixi loo ogolaaday ayadoo waa free banaanbuxu ayadoo la yiri yaa ina siday waxba ku sameyn ayadoo la yiri si nabad u banaanbaxa dawladda amniga Suez waati odaygi General Inda Cadda aha X hogaamiyaashii argagixisada aha intuu hadlay uu yiri wax dawlad la yiraahdo ma jiraan wasiir horaan ahaan jiray wasiirada hadda jooga wasiir hore ra'iisul wasaaraha jooga ra'iisul hore madaxweynaha jooga madaxweyne hore hadaba aniga wadanka amnigiisa sugaya darjirka daahsoona waa aniga taala iska hoos hadlaya aniga aan amniga biri mudaharaadayaasha u sugi doona waa in dhacde oo qabiilkiisu habar gidir yahay gaar ahaan cayr hadalkiisi bal waa kane si fiican dhagahaaga ugu fur ma aha hadal loo dul qaadan karo xabadna looga baajin karo loo seeta dheeray karo dabcan iyagu ma ogyihiin ma jiro wax maamul ma jiraan dalku maamul male waxa waaye maamulka jiraahay waa maamul aan waqtigiisa dhamaaday anigu waan wasiir jira soo moogid aniga wasiirka jiraahay wasiirkan jiro kala waa madaxweynaha jiraana madaxweynaha jiro kala waa asaga iyo Cabdiqaasinka jooga en maaragtay baashi Masar iyo farmaajo caawa waa isku mid laba madaxweyne hore waaye wuxuu ku joogaa si sharciga ka baxsan wixii lagu heshiiyey ka baxsan oo xoog ah oo qalad ah oo gardarro ah iyadana diidaynaa waa gartay biri banaanbaxu halkan ma ka dhacaya bulshada Soomaaliyeed ay ku daawanaysa maxaad u xaqiijin kartaa halkan waxaan u imid oo u taaganahay inaan u xaqiijiyo inay meeshaan amni tahay banaanbax oo ka dhaca banaanbax amniya oo salmiya oo nabadgelya oo dadku shucuurtooda ku muujinayaan meeshaan ka dhaca wax dhiba iyo midnana waxaan ugu baaqaa dadweynuhu inaysan samayn cid kasta oo arrintaas ka hor timaadana iyada mas'uuliyaddeeda qaadee ummaddu wax wal dastuur hadalladaas markay Inda Cadda ka soo yeereen durbadiiba qacdi u horeyso aan dhageystay waxaan soo xasuustay maalintii uu joogay Cadaada iyo Bandiirada la dhexdeeda 2006 ee uu yiri Puntland markaan ka faraxalano annaga midowgii maxaakiimta ah oo la tariya wata Puntland markaan ka faraxalano waxaan u jahaysan doonaa dhanka Addis Ababa oo aanu ku ciidi doonaa maalin soonaneehay maalintaas waxay kaliftay in ciidanka Ethiopia iyo kuwii Puntland iyo dawladda federaalka dawladda yaadiyaal ku meel gaarka ahaydba ay dhaqaaqaan maalinta wixii ka dambeeyay maalinta uu hadlay maalinta ka dambeysay taani cirib meel u dhigay waa la waayay General Inda Cadde aakhirkiina wuxuu ka soo hadlay dalka la tariyay magaalada Casmara maalinta waxa la oran karaa wuxuu fashiliyay hamigii iyo wixii ku hoos dugnaa maxaakiimta oo ahaa loo arkayay dad u socdo oo xukunka Soomaaliya u socda balse ahaa u socday falsafad xaq jirnimo oo geeska Afrika afjarkoodina uu ku dambeeyay Casmara ayagoo dacas 11 iyo barawat fashilka ku xigay oo uu fashiliyay qolada markaa uu la jiray kii xalay buu ahaa ayadoo la hadlay banaanbax salmiya shucuub lagu soo muujinayo adiga la ku rooyahay rabitaanka shacabka lagu muujinayo sida ay hore u sheegeen musharaxiinta asaga igmaday ee amniga u igmaday waa Xasan Cabdiraxmaan Sheekh Shariif Guuleed ninka la yiraahdo Geele ninka la yiraahdo Khayre ninka la yiraahdo magaranaysa maxaa dhacay kelmadda kadib waxaa dhacday in la ogaaday waxa ku hoos dugan banaanbax inuu jirin ay ku hoos dugan tahay inqilaab
daqiiqada ka bacdi hadalka marka kasoo yeerayba waxaa lagu dhaqaaqay taaladii haddii alla ku runay deji ka dahsoon 15 daqiiqa ma socon markii 3 gaarina laga qabsaday asna caleemaha yeeriyey hotelkii Maida oo ay deganaayeen xasan iyo asaga iyo sheekh shariifna laga qabtay isweerka oo la yiri meeshiina ku jira idinku eedaqa waa habeenkii xalay ahaa oo xasan iyo cabdiraxmaan iyo khayre ay noqdeen iyo ninka la yiraahdo ay noqdeen sheekh shariif ay noqdeen public figurada Facebook ka hadla live la soo wada galay waana la hayaa xabadaan ugu socotay aradilif dhawaama dooliya 8 Febraayo ha la gaaro 19 bahalki Febraayo ha la gaaro buumahan la baxayna muqdisho hadlaysa xabadan kaga saarayna meesha masaan waxay dhashay in sheekh shariif iyo ragii ugu tunka weynaa ee qaylin jiray ee magaca qabiilka ku qaylin jiray ee dhihi jiray kaca hawiyow kaca maanta waxay ogaadeen foto tabarteeda ruusta maanta waxay ogaadeen sheekh shariif xasan cabdiraxmaan iyo khayraba inaan qabiil wax la yiraahdo iyo hawiye ayaga doonaya aysan jirin in hawiyaha ay ku xisaabtamayeen ay farmaajo wada yihiin wiilka qoriga wataa waa farmaajo kan ku haya nabad iyo nolol baanahay waa farmaajo sarkaalka ciidanka wataa waa farmaajo ninka weerarayay waa hadii la ku rooyay John iyo waxa weerarayay hadii la ku rooyay iyo muxuu ahaa iyo hadii la ku rooyay iyo ninka la yiraahdo muxuu ahaa iyo odawaayo waxa weerarayay ciidanka weeraraya waa niman hawiya in ay khiyaali laf cad toobin ku hayaan maanta arkay waxay caaw maanta soo dambaysiiyeen waxaan la yaabay arey dilif dhawaama dooliya waxaan la yaabay xasan cali khayre oo islaam weyn dabadeed difaac ka raadsi waxaan la yaabay kab meesha looga cararo 45 ah 45 ah waa garanaysaa 45 qof awiya qaadan karaa ma jiro aan bahalkii ahayn aan cabdiraxmaan cabdishakuur ahayn 45 lambarkeedu yahay oo saa u gorofsan eelboorka agtiis arragu naf jecela orod dheera hadalkoodu marka hore adaka qaylo war nimanku say u qaylo weyn yihiin oo wuxuu afku xooglayaal u yihiin ilaa uma tabar badna oo uma adkaysi badna afkay bala ku shabata bow waana la laayay ana beesha caalamku war beel caalam ninka ay ka cilmayso idinka ma cilin karo war magaalada idinka u dhashay fowda ka daaya laga waay war magaalada idinka u dhashay fowdada ka daay dad baa xalay dhintay ciidanka ay wateen dad baa ku dhintay ciidan baa ka dhintay 3 gaari baa laga qabsaday wiilasha dhintay maanta ma yaqaana hooyadood baa tabaysa waa kuwa ayaga istaafiyada u ahaa naag hadduu naaqabay naagtaa tabaysa hadduu caruur lahaan caruurtiisa tabaysa laakiin asagu tabi mayo wuxuu leeyahay ciidan baa naga dhintay allah u naxariisto laga haray waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waa la istijaabshay waana la ogaaday xaqiiqada waxay soo dambaysiiyeen hadda guriga Muuse Shuudi baa abaabul ka socdaayo hadii ay ku rooy ciidan laga diyaar galinaya adiga Muuse doqon maaha arbaaxada xaasan ku dhacday oo shariif ku dhacdo cabdiraxmaan ku dhacday oo khayre laga day in u adkeysan kara Muuse maaha ama isku dhigaya hadda koor ba waxa laga sheegay durwaa libaax baa inta hal buu dilay kaasoo durwaa soo qabta durwaa noo qaybi wuxuu yiri hadii aan ku rooyay aarow boqorow hasha jeex qaado anagoo jeexan qaadayna intuu xanaaqay waraabi durwaagi baa laga soo qaaday intuu xanaaqay libaax baa durwaagi waxa laga soo xirmanaa nin la oran jiray nin gabya ahaa markii gabay sheekadii ku masaleeyay wuxuu yiri qiyaasow libaax baa yiri durwaa qayb yiri soor wuxuu yiri jeex bal qabo qoondhan baan nahay markaasoo qababaalihii qoonsaduu dilay darbaaxo ul kaga soo qaadayo hoor ka soo qubay afqa shuushle goortu dhintuu siiqa towsada qambiruursi iyo ohimbu qunduunac dawucu markaa soo qabtay sida qasaaseed sidii inuu tooganayo badwaca soo qabta isagoo qosli buu ilkaha qoqabkii xoqay ilkaha saacada xoqday wuxuu yiri qanjaa fala xumay tariiqa taarkaag waxay tiri adeer gacal qaaxaya dalool waxay tiri qomba biyo feero qaaxaya dalool iyo qowdhihii kuruska
ku wada qorsheeyay islow neefka wada qaado dhan waxaa dawacdi marka la weydiyo la yidhi maxaa hilbaha ninka wada siis intaas habardi waa ku fiirsanayse waxay tahay war meesha markaan dee kolka hore markaan dayay kolku weelku sii qulushaday kolka hore markaan dayay kobtu weelku sii qulushaday waa dhuwaagii war qudhaydaan u yaabay miyaa idin qululitay war ma aanan qudab ahayn baa qamash ka sawaaqsan waxaan ugu hamahayaa gabaygaa waxaan usoo qaata ninka yaa muuse suudi muuse baan usoo qaata muuse doqon maaha muuse doqon maaha haddii alla kuu rooy yahay wixii saa uga gabanayay xasan cali khayre saa u soconayay taagta lawaaxata lilbal arrinku naf jeclaa waa wiilkii dhihi jiray haddaan naha anagu ka raadin mayno sharafta iyo bahalka aan qabno ka raadin mayno qabqablayaasha iyo kuwa dalka gadanaya ee waxaan ka raadinaynaa shacabka soomaaliyeed maanta waa khayraha hubka tolaaye hala soo baxo la difaaca ku hay qabqablayaashu wuxuu sheegayeen waa xasan iyo sheekh shariif iyo cabdiraxmaan cabdishakuur raggu maanta la socdo aad baan oga xumahay wixii ku dhacaan la yaabay ka gudooba laba saar wadanku dowladnimo u baahan yahy hawiyaan shaqaynayn filin daaroodistii baan shaqaynayn filin qabiil baan shaqaynayn dadkani waa daalay dowlad dhagahooda xabad baa ka daashay ilaahow xabad hay maqashiin midka ku jira ilaahow xabad hay maqashiin maanta waxaa meesha iskugu yimid 30 habrood oo aan siri oo xasan cali khayre cabdiraxmaan cabdishakuur 30 habreedo 25 tahay haddii alla kuu roon yahay 20 tahay bay wateen 3 habrood xataa ma ahayn ma ciidan waxaa siri ciidan hataa staafkooda shabaab u geliyay oo 20 cayra iyo haddii alla kuu rooyo 10 murursada baa horrog markaasaa xabada bilaacata markaasaa shabka dhulka wada dhiga allah hadda ka hor baa suufow cali waxaa laga sheegay abwaankii weynaaye suufow cali ahaa awrkaa gadaysiya ku koray gaamuriye heetis oo gubaadoo lagu sidkiya nuugu jiray gaardis awrkaa ilaahay ka dhigay belada guuraysa awrkaas waa farmaaje ilaahay ka dhigay belada guuraysa wargeerida ninkii magac ku rabo mugundaha taabto haddii kale garuumada dhigoo nabad soo guux haddii kale garuumada dhiga oo nabad soo guux wiilkaasi inta uu joogay wuu tashaday ciidanna waa samaysta haddii hawiye iyo daarood lagu soo gaban lahaa xataa xaggu hawiye daarood iska dhiga runtaa idiin sheegayaan xaggu iska dhiga yaa ciidan waa mataqaana biyamaal waa dadkii 4 sano farmaajo khayre uu joogay xasan sheekh maxamuud u garaacayay dhash ka hayay 15 jirka kagama tegin biyamaal waa soo kaxaysta raxan weyn haddii alla kuu roon yahay beesha jaarweyne dad aan naxayn oo awal la dulmiyey oo la dhibaateeyey bunta ciidan ka wada dhigtay buy ilma farmaajatiin ilmahe farmaajo waa tiimbi wallahi is hawiye deynay oo daarood deynay oo fatraka kala deynay waxay arkaanba ariga farmaajo ka soo jeeda ha garam xarigtiida warnikaasi waa awrkii gadaysi kore gaamuriye heetis war adeerayaalow habraha masaakiinta iyo hooyinkan u gaban war ninkii maanta ku hameeya ama hamigiisa ay ku jidho farmaajo waa iska dhicin kadhaa oo qabiilna waa leedahay hubna waa leedahay war banaanka intay istaagtid adoo ummadan ku xoqxoqan habro soo kacoy islaama aftooda baridooda ku gabata adoo raadin inta banaanka soo istaagtid waxaad tiraa iskaaya siiya waa kan sadqaad sidaa xalay u kala sadqaadeen raggu waa isqabtaaniyahow waana kala qaboobaa hadduu raggu isgalo oo madaxa la isdiiro oo haddii alla ku kala adkaado ninka ragga waa qaracaa xaasha allahi laga adkaa buu dhahaa ilaahay baan ku dhaartay ilaah maanta ciidankii dowlad hadda xaafadooda la geeyey labadii nin oo haddii alla ku rooya ninkii gaabnaa ninkii dheeraa ninkii sheekh shariif iyo xasan sheekh maxamuud labadii xaafadooda la geeyey wallahi ciidanka dowladda geeyey heer waxay saagan war waxaa may kala rabnee hadda xaafadeeda keliya geeyey hotelka naga qaada wallahi xaafadooda la geeyey bilaah ila biyasha inoo dug joog hadda banaanka magaala soo baxay xataa madaxa nijibinaya qaswadayaal baatiin spoiler baatiin bari fariista meel raali ku noqday waa qancin waxa aan weli qancin waa ninka cararay saan filayo waxa aan weli qancin waa ninka cararay
oo labada nin oo midna kabta ka cararay nina saa dhabar kusii gudna halkaa fiir ilaahay kugu dhaarshay xagga fiir ilaahay saa la wadaya 9 goob iyo tuur baa la wada yeesha الله وانا قارتي الله معي حالي قصر الله حالي معي قصر ولقيت حالي قصر وما قصري حالي قصر هذا الرجال ومرك هذا الرجال الدولة ما هنا ديقضو دال كان دورشة وكان عيسى فرماتشنا مسي تشوغ يحوك ما هيسنكره دورشة ولا قليل ما هم القولة دي ورواي دي سوشة كنافة أهبلكي أديرك إياها شبكة كل على سيابنا شبكة كل عي waxaan maqli jiray hadda ka hor baa islaam waxa laga sheegay islaam tukan jiray baa inaan maxaa soo muuy ma oday waa aga islaam ayaan islaam raali ahaa oday aan tukan jiray waligi tukan baabi soo qaad baa la gaaray suuga tukan say warniyo maba soontide maba salaadide maxaa tukantaa wuxuu anigu wax kala yeelkoodi ilaahay haaf baasa ku dhiman may ama haaf bariisa ilaahay ku dhiman may nabiyo reer midigu waa ilaan dheera waxa ilaahay ku dhiman may hadda waxa la yaabana hal niki day aha habeen dhawata idin sheegay ma dhaway goorta idin sheegay 18 bisha idin sheegay saan filayo 17 bisha fiidiyoo waxa dib u raac baa idin sheegay hasan yaa la hadlay waxa la yiri 19 mudaharaad baan leenahay shirka hanagu bilaabi muud ka gal 20 bisha ka soo haymaan u ballan qaaday waa yahay wali baa soo doon ku haya balkii axmedaha wacaya ku haya waa la is wacay hadda waa la joogaa shirki waa joogaan maamulka kale waa joogaan labada maqan 20 biri imaanaya 20 biri ee qodob kalmada bay imaanaya waxay islahaayeen mudaharaadka nimanka mucaaradka ay sameynayaan u kaadiya markay waxooda sameystaan oo ay dhahaan ablaaya hadashay muqdisho hadashay guri marka soo duro shirka gal ayadoo beesha caanka la tusay in la yiraahdo maasha waa nacam من إلهي الرباع إذا نعكرنا من إلهي الربو وشعب كيس الرباع ميان تسكرنا ولا نعيدي كرنا ورني يرد دكتور سوا شيء ورني مقدس ولا أوفر بايت سنت مقدس ولا أوفر بايت سنت دولها بروا نقدر يكون أحسن معه أوفر بايت سنت محاسب أي نامر محاسب أي أنا معارض كمحاسب أي نامر نيجي أدي ولا حضرني مقدس ولا سأفر تمام الجوال كده وحضرني يا هدي لا إله إلا الله محمد رسول حاول كلام وايدي هيا حالي انت لو ويرين حالي هذا بريوي مارتا اذا بريوي معنا يا حاجينيو ودني بريوي معنا يا جيدا نارنا واي معنا يا بريوي معنا يا واسكو خريين نيك بوروني نيك مدو بريوي معنا يا الهي نواد كانوا مدهرات بيسوقين هذا مدهرات قبصوا يسوقين مدهرات بيسوقين إن ما كي معاد كهايو أي وش غيري إن أديال كورو أي هوش على كوضان به سعون ويدي هذا بريم أنا يو سرقة قوي بريم أنا يا تاسو أمد حالي إن عاد أنت لو ويرني إن عاد أنت لو ويرني رئيس الوزراء واتقنا مويا روبل أنها برقدري قبيل كيسون وسعد هذا كور قصة العظيم هذا كور قصة العظيم محاكمتي هبرقدري واحد هو جامني عير هبرقدري عير بقى بدنا هجاميني غير كان هذا صعب حبر جديد محاكمته والله صعب يركض مع الدبل غير كان سعد لي هذا او سيبيان ما هجامي عبد غيب جديد هجامي يكون حلوها يا رجله سليب علي واديدي جنب القسي جنب عبد غيب جديد وحو كغبح يا سو ان الشارقه من الشيخ با غاري استودا ويل كلا عرب nimankaasi waxay u dagaalameen sidii waxay u dagaalameen nimankii la oran jiray ii sheeg maamul muxuu ninkii Liibiya kii xoreyn jiray oo hogaamiyahoodii sayidka meesha noo joogayo muxuu ahaa Umar Mukhtaar saas inta wadmeen oo jaratay qoteen baaliyeena bixi kara ma lagu hadda iska xireen bay hal dagaalamo de aakhirkii ma waxaan dhamaanay muxuu soo dhan weeye aakhirkii qoryaha dhunta laga dhig waan leeyahay farxadkoodii gaalka ayay soo galeen waa tashadeen maxaa yeelaa waxaan yeelnaa habar gidib basaan noo gashay Soomaa habar gidib basaan noo gashay Soomaa ha bajeertanka madaxweynaha helay baan raacayna waan ka aarsanayna Cabdi Qeydid wati ciidanka taliyaha booliska laga dhigay waa kii halka wuxuu haystay iyo wuxuu reerkiisa ka soo haalan karay xagga noo soo raacay waa kii habar gidib la dagaalamay waa kii halka yimid oo cayr baa u badnaa maxaakimtii wixii la dagaalamay
iyo saleebaan iyo duduble iyo balaa dhan bay wateen abgaal baa ugu yaraa abgaal sheekh shariifka arkaysid abgaal raaci waaye abgaal bax bay dheheen imaanka la ka qaaday ninka la baalka ka haystay abgaal waxay raacsanaayeen cali maxamed geedi xalay waa la tashaday waxaa la yidhi cayrow nimankii saacadaha waxaa la yidhi maanta anagu ra-iisul wasaare noqon gudoomiyaha musharaxiinta afhayeenka musharaxiinta waa cabdiraxmaan cabdishakuur waa nin cayra ninka yidhi daljirka dah soo qabsaday ee yidhi anaa waddankan bahali ka ahna indha caddana waa nin cayra annaga cayr miyaa raba bay dheheen inuu haddii alla ku roon yahay hadda xalay farmaajo weerar maley amarka ninka bixiyey oo yidhi madaxa badaga dhaco baa saddex gaar ka furtay waa ninka yidhahda roble maalin kasta ma annaga cayr baa noo soo xaganayay cayr markaanu rootiga afka gelinaba ma cayr baa ka baxsan la anahay oo annaga noo soo xanaanay wallaahi billahi waa shirka xalay ugu dambeeyay anigu meel kasta antina way dhex taalaa moogta shirka xalay ugu dambeeyay la go'aaminayay sacad baa go'aamiyey farmaajo iyo annagu isku doon baan saaranahay cayrow ummadda kale maalintii hayso dhabaqda la aada inta cadow shalay waa joogtay xasan sheekh maxamed markuu yimaado dana la aad baay wadaalada ra'iisul ka ahaay wariya dhamaantiis nimanka musharaxiinta sheeganaya ee midowga qabiilaysana wax bal yiraahdo muxuu ahaa qabiil la yiraahdo raacsan oo dad waxaan arkay soo qoraya hawiya dowladnimo ma rabo war hawiya dowlad ka jecel waan rabaa dowladnimo haddii aan ku rooyo kuwa diidayna soo baxaana waa hawiye kuwa haddii aan ku rooyo xabadeenaya iyaga ceyrsanaya waa hawiye kuwa haddii aan ku rooyo yahay afka cagta kala dhacay waa hawiye kuwa baawarta ka furtay waa hawiye yaa dadka la jaaifeyn qabiilka iyo siyaasadda political kala saara qabiilka iyo qarannimada kala saara dadkaani dowladnimo waa rabaa hawiye dowladnimo waa rabaa hawiye adusu dowladnimo rabin adeer cid muqdisho hal habeen joogi kardhin ma jiro rumaa idin sheegayaan ayagoon cidna dilin cidna bahalkiin habar kasta iskii hadday soo qaadato dhagax qaadato ayadaa ka badan laakiin nimankan tuugadaahi hawiyana ma rabo daaroodna ma rabo waa caloo shaqayste cid allaale cid aaminaysaa ma jirto cid allaale cid aaminaysaa ma jirto ama rabta dadkaani xabad dunya naga ka nasteera waxaa idin leeyahay aan qubalaa kusii fogaanayn cararka dambe iyo carcarta hore kala daaya nacala shaydaanku yaa isma galaan isma qabato cararka hore iyo cararta dambe aad baa insaanaya waxaa idin leeyahay waana koortida madaxiisa leh waa qubalahaygii waa qubalahiini wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu